shirku maanta hawshiisu waa bilow marka koobaad malaha aniga waxaa laygu marti qaaday inaan idhaahdo shirku wuu inoo furay key pointka qodobada la soo qaaday saddex qodob ayuu baan ka xusi oo la aad loo tixgeliyo ka koobaad shaqa muwaadin qaban karo waxa inoo gudoona inaanu qof ajnabi ahaynin qolada ganacsatada ee ka dayrisay farsamo xumadeena ama in dadkeenu farsamada aqoon iyo wasaaradda bixisa shaqada ogolaanshaha in ajaanib la keenahay isla hubiyeen shaqada ninka ajnabiga halkan u yimid inaanu qaban karro aad arinta laga hubsado sababtoo ah waxa aad loo hadalhayaa oo guuxooda ka jira in shaqooyin badan oo aynu aqoonteeda leeyahay dad ajnabi hayaan waxa la nool isbaaya inta badan inay keenaan private sector-ka ama baaci mushtarku oo ay ku degdegaan iyagoo hubinin inuu shaqo ahayn kale arinta waxaan jecelahay in la isla hubsado qodobka labaad waxay noo gudaana inaynu waxbarashadeena u bedelo sida imika tahay si ka duwan si ay isu waafaqaan suuqa caalamka iyo gudahaba ee shaqada iyo waxbarashadeena oo wax badan ka bedelo taas qodob kale tixgelin mudan oo inankii sooyo u hadlayo wuxuu yiri baaranka sida wax looga amaahdaa way dhib badan tahay waa arrin tixgelinteeda leh waana joogaan hay'adihii shirkadihii baaranku iyana waxaynu u baahanahay iyadoo baanankuna dhibaatooyin ka qabaan iyo baaci shirkeed ma laha insurance waxood waa khatar bahdi jeer galaan yeelkeeda ee haddana waa inuu dib ugu noqonnaa sida ugu fudud ee loo fulin karo in deyn loo siiyo dadka dhalinyarada ah ama danyarta ah oo aanay deynta qaadan deynta istaqaanay lacagta leh hebel shirkadaana ama hebel shirkadaana markii kale aanu meesha ku baqtiin ra'yigaana waynu u baahanayno hirgelinayno wada jiro tagu dambaysa shirka waxaynu ka sugaynaa inuu inoo sameeyo iskaashi ah sideen dadkeenu shaqo galina waa la baday hay'adihii ajnabiga ah waa joogaan oo arinta ay naga caawiya baaciirkina waa joogaa dawladdiina way joogtaa anaga xukuumadda waxa naga wakiilo wasiiradaas oo ah kuwa qaabilsan hawsha taladuna way naga urursantahay anaga waxa kale oo siday waxaynu meel ku gaari karnaa oo inuu aaminad ku heenaraa waa daahfurnaanta hadiya jeer dadka imika ra'yiga ay qabaan ra'yil caamka dadkeenu waxa weeye dawladdu inay tahay meel musuqaho waxa loo dhiiba oo cunto oo aaminadu ku yar tahay baaciirka aad loo aaminaa taa waa isla ognahay anagu waxaanu ku dadaalay xukuumadda haddaynu nahay inaanu dadka caqligooda tusno inaanay dawladdu toogad ahayn oo waxa ay noo dhibaan daahfuraan ku maamulo dadaalkaygu waa kaa hadday waqti tahay oo kagu qaalisana dadku lacagtuun bay eegaana waqtiga qofka laga rabaa inuu 8 saacadood ama 10 saacadood inuu serious u shaqeeyo waa aaminaada ugu weyn wixii loo dhibay in daafuraan iyo daacad noqoto dawladdu waa institution weyn waa hay'ad weyn mar quramood hagaag karto laakiin waxa naga go'aana in ra'yiga ila 60kii soo jiray ee heesaha badan laga tiriyay ee dadku oo ka shakisan yahay inaanu ku dadaalno inaanu arinta bedelo mustaqbalka soo socda dadkuna aaminaan in dawladdu wixii loo dhibay la arki karo markaas shirkadu dawladda aamin kara oo ninka baaciirka dawladda aaminaya oo cashuurta bixinaya hadii kala cashuurtii waa ka shaksay kullu mid yarba ku qeyl lahaay bal adigu ama masaajid gal ama mid aan siibi soodhanaya marka waxaan doonayaa arinta inuu ka wadaagno oo iyagu inuu way saamisan aan wada shaqeyn karno taasina waa naga hawl dhalinyarada anagu wixii aan u haynay wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ayaa haysa iyo wasaarado kale oo halka waxa jooga gudoomiyaha shaqaalaha anaga arinta shirka waxaan ku qayb galayno iyo qorshaha iyaga 5 sano uu urursay inta shaqaalaha qaadi karo marka la eego dhaqaalaha xukuumadda imka soo gala dabcan ma naasiin mudnaanta koobaad ma naasiin shaqagelinta mudnaanta koobaad waxaan siinay nabadgelyada oo mas'uuliyadda ugu weyn laga doonayaa oo haddana nabadgelyo lahayn la shaqeyn maayo mudnaanta labaad waxaan siinay caafimaadka oo haddii dadkii ay wada bukoodaan iyana shaqo la geli maayo mudnaanta saddexaad waxaan siinay waxbarashada weerno qofkii soo carbina saddexaad mas'uuliyadda shirkaduhu la wadaagaan dawladda ay saaran tahay marka kuwaas aan mudnaanta siinay marka hadaan qofkii caafimaad qabkiisa ka soo talinay waxbarashadiisa ka soo talinay ammaankiisa ka soo talagelinay shaqo galintii waa in la caawiyaa uma in dhaqaalaha inta lagu xoog weyntahay
taana halkaasaan ku taaganahay intii ka soo qayb gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkana insha Allah wax khayr qabnu ka howlgallo ayaanu ka soo bixi doonaa hay'adaha ajnabigana waa u mahadnaqayaa. Wassalaamu calaykum.